gabadhi hani adiga qabtidaad ii sheegtay oo naag la qaba ay tahay oo caruurna ay ku hayso shan Allah barakeeyo maasha Allah marka gabadhan wiilkayga oo ii keen waxay ugu soo sheekaysay iidan afkeeda ii sheegtay inaan la qabin oo caruurna ay salahaan nin raga war ilmaha aan ka soo jiida waxaan ahayniba waa soo martaa adduunyada nin joogow maxaa aragti ku laaban Kamaal Cabdul iyo waliba walaashay Hani iyo waliba walaalkay Cabdisalaan Cali Xaashi hawshoodii oo banaanka u soo baxday wax badan baan ogaa muddaan qarinaay murugtan caashaqayga muddaan qarinaay laakiin maanta waa wax iska waadaxa social media-hana dhex taal aanna lay oran karin war maxaad u qarinaysa maxaad macnaha uga soo hadashay because waxa weeye maadaama aan xogogaa lahay oo Cabdisalaanna nin walaalkay yahay walaashay Halina ay tahay gabar walaashaya oo aan aqoon u lahaa iyagiyo ubadkoodaba magaalana aan kula noolaan jiray wax badanna aan isnaqaanay kumaan degdegin laakiin markan danibati salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad iga dheeganaysaanna waa barteennii bartaan ku kulmi jirnay waa la ka hamidhi baro aad iyo aad ayaad mahadsantiin kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay allah yaa mahad iska leh sii sheergaraya barnaamijka asxaabta la wadaaga aaminoy walaal subscribe-ka dhagsi dhag war maalmahan waa fiicantiin waydin arkaaye dhagsi gambaleelka ilowday aamino adiga dee saasaan magacaaga u sheegaa markasta aamino inaga daa walaal ciyaar cali adiguna waa cusub tahay saaxiib adoo waliba jeestaynaya saa like u saar war waxaynu ka hadli doonaa maanta waa barnaamijkeennii falanqaynta baraha bulshada waxaa cusub Kamaal Daahir oo YouTuber ah Kamaal Cabdul ilaahday Kamaal Cabdul ama Kamaal Daahir ma la ilaaha illa Allah nin kale saaxiibkeen ku qaldaya Kamaal Cabdul oo aad wada garanaysaan oo nin social media caan ka ah iyo waliba laba qof oo kale oo aniga walaalahay aan aqaan oo ay dad aan aqoon u leeyahay ayaan waxaan rabaa barnaamijkooda inaan ka hadlo baraha bulshada soo galay muddo aan ogaa maalmaha muddo xaaladan waa la socday laakiin waxaan islahaa xoogaa cagta u dhig kolba war jiraaba cakaarow iman hadda cakaarihii buu yimi dadaan xataa ogeyn inaan aqaan baa waa aragteen TikTok uu soo dhex wareegaya Kamaal Cabdul Hani alle barnaamijkaas marka ayaynu ka hadlaynaa waa falanqaynaynaa waxa weeye waa Kamaal Cabdul aabihiis odaygii oo hadlay laftigiisii oo ka hadlay barnaamijka ayaan waxaan rabaa insha Allah bal inaan inaguna wax yar sii taataabano wax yar baynu sii taataaban doonaa safari baan ka dhigayaa iyo enjoy baan ka dhigayaa iyo sheeko noocaas waa la iskala tagay xaaladdu waxay maraysaa barakamalay balaynu daawano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عبد السلام علي حاشي وفق السلام عليكم عبد الحميد مؤمن ولكن وام مغلي عجلة فيديو وفير سدي كنت آذان أقول معي دبلي هني هذه قبتي ذات إيشكتي ونقل غبي أي تهي وعرور أي كوهي شن الله بركة ما شاء الله marka gabadhan wiilkeen waxay ugu soo sheekaysay iidan afkeeda ii sheegtay inaan la qabin oo caruurna ay salahaan marka oday aabahaada marka la yirin ninka inuu yimid aabaheeda matala aabaheedana yirin aabaheeda ma hatiri marka arintiina waa haddaan maqlay maanta sharaal ay soo gaartay iyo sideedaba arrin waxay u noqotay aad iyo aad oo runtii madax xanuun waa ka xumahay aadan ugu xumahay qaladaa la galay waana la qalday beenaa la sheegay kulley marka insha Allah وأرنتان وهجاجيسا وكرال جرينا هذه إن شاء الله وحواي قرض على دعم مش قلت مش وكسعنا كله وفهم runtii waxa ku qoran gabar baa soo dhigtay muuqaal kan waxay tiri arrinkan waa run gabadha Hani in la dhaho adeerkay baa qabo 5 caruur ah bay u dhashay ayadana
iyadoona la qabo Kamaal Aaday iyadoona la qabo bay Kamaal Aaday bay tiri okay bal hadal kalena waa sii dhegeysan doonaa xaaladdu waa adag tahay waa culus tahay bal kana in dhegeysano inta la dhihin waxyaabahan caawa aan furka isugu tuurnay wariyaa waxaan ka bixin fiidiyoyaashan waxa sadaysa ka bixi marka insha Allah waa u sheega waa laga bixina asagana ilaahay warkiisi inuu kii qaata Allah ka dhigo ilma caasiya jooga caasi waalidin laakiin ani caasi ma dhalin mana dhalay insha Allah waa hagaagaysa waa isharafta Allah ku sharfo waxa sheegaysana waa wax nin walba rag ka damqaayo تبيسدي لكن إيضا مدح هذا وهورا مالي كوارستي وينيسا هذه إيضا مشاكل سجيسي ويلكي قرطة إنه كل قلقلته لكن مدح عيسو إيضا كوكوما إن شاء الله وبالله التوفيق ولا الكي أنا هذا الشيء مركز تقدر صوت بعينا وحنا كسر ولا وحن داوضي وقال وكمال كهلاية يهاني وسلف فدية وأن أمليني إن شاء الله لسوقلي Kamaal la isaga hadalkiisa in adayg baa ka muuqda aabihii iyo dadkiisina waxay leeyihiin ka saar muuqaalada xaajadu waa adag tahay walaal aabaha waa kula hadlay hooyadana waa tan way hadlaysaa waxay la hadlaysaa hani gabadheeda waxay leedahay hooyo la hadalo waxa tiraahdaa sawirka wiilkayga ha ka qaado marka bal inta yar baan ku daraya ma raba xaajadoo dhan inaan say tahay u wada qeexo ama aan soo wada bandhigo wixii cadayma aan hayo oo ma doonayo laakiin saaxib tala ahaan wali waa talo iyo walaalnimo iyo asxaan iyo saaxiibtinimo iyo hani oo de walaashay waan jeclahay ka saar saaxib waa ku barya bal intaan ila dhageysta kaliya السلام عليكم نجمة إيوانا سيطة حالة ورير ما شاء الله وفي عنها أنا كان الحمد لله واسعبك هو يدا وحصارا كمال إيسا بالكودة لهذا الهدجيسو أنا قد جيسا مربنا أنا وحنا بإنه لما ربنا أولو تتمية لباب إيو أنا قد جيسو شاك ولا إن شاء الله السلام عليكم ها سيدا درادد سيدا هو يدا ربتا أنا قنا ساسان ربا إن شاكدو هلقا كو حيرانتو sababta hooyo Soomaaliyeed oo sharaf leh oo caruurteedii saa loola soo hadlayo oo ma garanaysaa in baraha bulshada lagu hadlayo wax lagu wanaagsan yahay weeye sharaf maaha walaal marka ka saar muuqaaladeeda ka saar waxyaado dhan ka saar sheekadana iska soo afjar ilaa in ragu ka dhigay waa kula raganimo hadlaya laakiin cadaymaha aan helayno oo hadda ma garanaysaa xaqiiqada dhabta ah hadii la soo wada dhigo wax badan baa dhagaa faraha la gashanaya marka كذا إن شاء الله كذا شرفت رجعني ماذا يقيمها هو يصوماليات قيمها وردية ولا كمال عبدل أبا هذا الكيس هذا أباها يهو يدا هذا الكذي بان بأنو كوسي عيلنيا كاسون بان كلها هاي مركب إن شاء الله تلاداس الله كو فائدة الله كو جلسيو سفني باجي جو وحاس مش قيني سه سيدا صح ذاك إن شاء الله waxa fiicnaan lahayd marka tala ahaan waxaan ugu soo jeedinayaa maadaama uu yahay nin YouTuber oo caan ah hani iyo Cabdisalaam walaal waa la yaqaanaa dadku way wada yaqaanaan waa gabar yaafla degan waa gabar Sweden ka sii degan yaafla Buurland waxay ka sii degan tahay yaafla magaalada yaafla inta aan ogahay markaan ka waramo hooyo 5 ciyaal leh ma sha Allah Allah u barakeeyo weeye Cabdisalaam u dhashay marka waxaan oran lahaa gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa war gacanta warbahashu intaysan faraha ka sii bixin kolba hadda social media hadda soo gashay maanta baraha bulshada saa loo wareejinayo adeerkay bay 5 u dhashay adeerkay baa qabaha gabar la qabo sii gur waxa maadaama ay hadda baraha bulshada soo gashay xogaa way sii fool xumaanaysaa codadkii aabaha iyo adeerada lagula hadlayna ay imaanayaan Kamaal Cabdul baan la hadlayaa si ka YouTuber ahaan talo dadku Soomaalidu kolba waa jeceshahay qofka caanka ah hadii in yari ka dhacdo oo bahalkii in la sii maaragtay xogaa maaragtay la sii dabagalo marka waxaan ku dhihi lahaa muuqaaladaas iska xir iska tuur xaaladana gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaaya warbahasho hoos u dhaq aniga aad u isma naqaan laakiin
korkaasun baa laga yaabaa sidaan kaaga aqaanin adiguna iiga taqaanid. laakiin youtuberada Soomaalida way is yaqaanaan, inagoo dhan baa dad yar ah, marka dadkaa yarina waa dad is yaqaan. sidaa daraadeed tala ahaan waxaan kugu soo jeedin lahaa, kolba bahasha hadda way soo baxday wayna qaraxday, laakiin intaysan kugu sii say tahay usii dilaacin oo aan YouTube kasta iyo social media aadan wada qabsan, haruub daatay caanaha hambadaa la qaban jiray. haruub daatay caanaha hambadaa la qabtaa, intaasiba cayri cayma ma diido. marka wixii horay oo tegey codadka odayga iyo ilaa hadda waa labo, laakiin waxaa laga yaabaa inay kasii bataan waxyaabo badan. marka saaxib waa kula talinayaa tala wey, laakiin mawduucan sida rasmiga ah waa iska soo bixi doontaa, xaqiiqada dhabta ahi ma qarsoonto. hubaal wax kasta oo jira, in kasta oo wax la daahdaaho ama wax la qariyo banaankay usoo baxaan, horaa laga arkayaa. marka inagu hadda cimraan ahaan inaynu sii dhex gallo oo xaaladan kusii fogaana ma doonayno, laakiin Kamaal baan waxaan u jeedinayaa, walaalkay Kamaal Cabdulla, inuu waxaan u jeedinayaa hal talo. talo u jeedinayaa, taladaan u jeedinayaa waxay tahay hani waa gabar walaashay ah, waan jeclahay, ma garanaysaa sharaf iyo qiimo iyo haykal gabarnimaynaas huwan tahay. anigu aadaan kula hadlayaa nina war ninow zafani iyo jojo iyo waxaa sheegtid waxaas shaqayn mayaane, wareedhe aabaha taliisa qaada, muuqaalada ka saar, war muuqaalada ka saar. haruub daatay caanaha hambadaa la qabtaa. si kasta markaa muuqaalada private gelisid gasho, xaaladan soo dhammee, idinkoo isku faraxsan kadib imaada. haddii ay macquul noqoto wey, oo ay taasi suurowdo oo wax cad ay taasi soo noqoto markaa kadib imow. haddii ay noqon weydana dhilay dabada usii qabo, waa iga talo. amaba markaan dhinaca kale u dhigo, waa sidii qof kasta oo ra'yi leh uu yeeli lahaa, qof kasta oo caqli leh oo bini aadanah waa sidii uu yeeli lahaa. walaashay hani iyo ciyaalkeeda iyo Cabdisalaan waxa weeye xaaladani xaalad waxa weeye faamil oo ma garanaysa xoogaa, marka ma qurux badna Kamaalow. mustaqbal iyo rajo iyo dhalinyaranimo dambe baad adigu shakhsiyan Kamaal, adigu shakhsiyan waxaad iska sii leedahay rajo dambe iyo mustaqbal dambe iyo aayad dambe iyo ma garanaysa. marka waxaas in hadda ma garanaysaa faamil xaaladiis iyo ay qaraxdo xoogaa sharaf kuma aha. aabaha iyo waalidka iyo ma garanaysaa dadkii iyo taladooda, iyo anagoo maaragtay kula ah social media kula joogna, muhiim bay tahay inaad taladayada raacdid. anigu talada aabaha ku siinayay ama adeerkaa ku siinayay mid lamidaan ku siinaya, walaalkaabana waa kaa naxaya. sharafka gabadhaa walaashayo hanina waa u turaya. taladaas waxaan kuu siinayaa waxay tahay oo hal qodob keliya. nin dhalinyaro ah baa tahay oo mustaqbal nolosha kale. kow, hani waa gabar walaashay, iyadii carruurteeda aan aqaan. ma jecli in iyadoo baraha bulshada lagu jiijiidayo in la arko, ma jecli. sharafna maaha, waana hooyo Soomaaliyeed. hooyo Soomaaliyeedna qiimay leedahay, bulshada dhexdeeda qiimay ka leedahay. marka waxba ha soo fariisin, waxba ha keenin, muuqaalada ku jirana ka saar. waa iga talo. taladaan ku siinayana mid kale maaha, waa taladu aabaha ku siiyey, ma garanaysa. arrintana totally ahaan ilaahay nin buu kaa dhigay. toosh qaado. awal haddii aad laambad yar wax ku fiirinaysay, spotlight weyn qaado ku ifi xaaladda sida jirto oo dhabtaa fiiri, kadib markaa sidii tala caqligaaga ay kula noqoto kadib bayeel. laakiin muuqaaladan gabadha waa kugula talinayaa ka saar. anigu ilaa hadda waxaan u hadlayaa sidii waalidkaa kuula hadlaya oo kale baan kuula hadlayaa. laakiin waxaa laga yaabaa in kuwa aan gabadha aqoon, oo aan Cabdisalaan aqoon, oo aan ubadkooda ka warqabin, inay inta waxaan gacanta ku dhigaan
inay siday doonaan wax u jeexjeexaan saasaan kuu diidaya marka bal muuqaaladaada horta oo kugu ah markhaantiga nool kugu ah iska daba qabo kuwa iska xir waa iga talo intaasaan kugu waaninayaa nin dhalinyaro ah social mediaha laga yaqaanay muuqaalo soo dhiga ma garanaysaa youtube-kaas ma garanaysaa si fiican looga garanaya baad ahayd wax kasta aad samaynaysidna ka fiirsashay u baahan yihiin saaxiib ama ha kuu saxsanaato xaaladahaagu ha kuu saxsanaadaan ama ha kuu qaldanaadaan laakiin waxaad soo shiishay oo say tahay usoo shiishay oo aad meel wanaagsan soo dhigtay ma garanaysa ayaa lala yimaadaa baraha bulshada weli waxaan ku leeyahay bawda rageed midba maalin bay mar qaawan tahay inaan kugu sii tiigto ma raba saaxiibow muuqaalada gabadha ka saar waa iga talo dad badan oo commentiyada kuu soo qoraan way jiraan laakiin waxba ma garanaysa hadde waalid hadduu kula hadlay oo dad kale kula hadlaan keliya waxaa kuusii dhinaanaysa inay bulshada soomaaliyeed oo dhan ku qaraxdo waxaani marka intaysanba gaarin meelahaas saaxiib waa iga talo walaalnimo weeye liajli inaad adigu dhalinyaro tahay liajli hooyo soomaaliyeed oo ubad leh inay tahay gabadhaasi sharafkeeda iyo sumcaddeedaan waardeynaya walaalow waa iga talo qaado taladayda insha allah waa liibaanaysaa wallahi taladan ku siinayaana ma ahaba mid kaleba ka youtubernimo ka soomaalinimo ka islaamnimo xagga idhigba tii aabbaha iyo adeerkaa ku siinayeen oo aan hadda soo bandhigay laftigeeda weeye mid kaleba maaha taa laftigeeda uun baan kuu xoojiyey qaado insha allah waa ku liibaanaysaa social media maanta soomaaliya o dhan wax kuma kala dhex qarsoona tan kale qofku haddii qof bulshada ka dhex muuqda uu yahay amaba dadka hadda ka dhex muuqasho kale ma jirto laakiin dadka iyagaa social media dhex jooga haddii uu yahay waad aragteen wax badan baad aragteen hebel xaaskiisii uur bay leedahay bannaankii taallaa hebel xaaskiisii waa kala tageen bannaankii taallaa hebel baa guursaday dadka ama heblaayo qof gabar kasta oo caana ama wiil kasta oo baraha bulshada dhexdeeda caanka ah oo ka mid a dadka janaaladooda waxay soo geliyaan lagu taxan yahay ama tiktok ha ahaado ama facebook ha ahaado ama youtube ha ahaado waxyaabaha ay sameeyaan soomaalidu islamarkaba dhug bay u leedahay dhug saasay u fiiriyaan ninkii hebel ahaa marka intaas baan ku leeyahay saaxiib taladeeda qaado intaasaan kusoo gabagabeynaya waxaan idinkaga tegaya asalaamu ullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nooli kulanteed ma doonayo inaan gudaha usii galo xaajada inaan sii fayda ma doonayo